xiisad siyaasadeed oo aad culus ayaa ka taagan maamulka Galmudug xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in xaaladda maamulkaasi ee Galmudug ay ku wajahdo qaabkii koonfur galbeed oo talada laga faramuroojiyay hogaankii lafta gareen ee halkaasi muddada dheer ka talinayay gudaha Galmudug waxaa ka socda abaabul ciidan oo iska soo horjeeda iyadoo xalay wasiir iyo sidoo kale xarar dheer ay ka soo baxeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo tiro badan kuna wajahna caasimadda maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa diidan inuu doorasho qof iyo cod u ka qabto deegaanada maamulka Galmudug xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn u qorsheynayso inay Galmudug ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah madaxtooyada filla Soomaaliya waxa ka dhacay saacadii la soo dhaafay kulamo xasaasi ah oo looga arinsanayo xaalka Galmudug iyo shakhsiga ku metelaya xisbiga talada haya ee GSB warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in dhowr jeer ay isku khilaafeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda nabadgelyada NISA Mahad Salaad iyadoo si weyn la isku mari laayahay shakhsiga lagu aamini karo hogaanka Galmudug doorashada soo socota Mahad Salaad ayaa la sheegay inuu doonayo ama daneynayo in hogaanka maamulka Galmudug ku metelo xisbiga GSB ama mar kale loo dhiso hogaanka maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor halka garab kale oo madaxtooyada ay ka tirsan tahay ay wadaan qorshe lagu raadinayo waji cusub oo siyaasadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu doortay hogaanka maamulkaasi ku metelaya xisbiga GSB Liibaan Axmed Xasan oo kamid ah siyaasiyiinta musharaxiinta halkaasi ka soo jeeda iyadoona si weyn ay isku hayaan Mahad Salaad sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arinta Galmudug arintan ayaa cir ku sii shareertay kadib kulamo qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta Galmudug oo si gaar ah loola kulmay 24 saac la soo dhaafay waxa si aad ah u qasneed xaaladda siyaasadeed ee Galmudug iyadoo siyaasiyiinta iyo sidoo kale saraakiisha kala taageersan madaxda isku haya talada ay hawada isu marinayaan fariimo habanjabaada ah iyo digniino isugu jira waxararka ka imaanaya dhuusan mareeb iyo deegaanada kale ee Galmudug ayaa muujinaya in dadka shacabka ay wala xoogan ay ka muujinayaan in xiisada siyaasadeed ay u gudubto iska horimaad hubeysan sidoo kale waxa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo qaybo kamid ah gobolka Mudug iyo sidoo kale Galgaduud iyadoona si weyn ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ugu qulqulayaan taasoo xaaladda marmar ka dambaysa laga cabsi qabo in halkaasi uu ka dhaco dagaal aad culus odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Galmudug ayaa bilaabay dadaalo lagu dajinayo xiisada si looga hortago in khilaafka siyaasadeed uu isku bedelo dagaal toos ah oo ka dhaca gudaha maamulka Galmudug